بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهيك الصوماليات واني سلامي سلام كدب فرين تيدان waxay ku socotaa gabar walba oo Soomaaliyeed bay ku socotaa insha Allah. walaashayda Soomaaliyeed mar walba waxaad maqashaa waxaan u doodaynaa waxaan raadinaynaa xuquuqdii gabadha Soomaaliyeed ama xuquuqdii dumarka Soomaaliyeed baan raadinaynaa marka waxaan rabnaa bal dhowr meelood baan ka fiirino dhinaca dadka gaalada ah inaan ka fiirino dhinaca dadka islaamka ana inaan ka fiirino maadaama hadalku labada dhinacba uu ka imaanayo okay dhinaca gaalada haddaan ku hormarno waqtigii islaamka ka hor ama islaamka laftiisa waqtigu joogay gaaladu sidee bay gabdhaha ula dhaqmi jireen waxay ula dhaqmi jireen gabadha iyadoo nool bay doogi jireen ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إلهي وحيري قف قال هذا كم إذا هدي الله بشاري إنه جبار ودلتي أو ليرى هذا جبار أكو دلتي وجهي سوحها هرينا يا عارو يمدو بعرة وجهي سهرينا يا وجهي ساس وحهرينا مدو قاسو كانت عرضة وكحنيها جبار ودلتي عمر بن الخطاب وحيري وقتي أنا الإسلام كأهين لابد شيء مركان صو حسوسته مرنا وان قصلا مرنا وان ويا كأن قصلا يوحيري بور وهاش اللي هذا تمر بانتان سوقاته أو سيدو قفو كلا كديجو أو سنم كديجو بان عابود جري وسجود جري ما تنو كدل وريق جري مركا جاج إقابتنا لقبان فوقسين جري أما قعن بان فوقسين جري أما مدحان فوقسين جري أو عني عقلي النوع عسم أو أن كفكري مركا حسوسته بيري وان قصلا marka aan ooyana gabar yar ay joogtay buu yiri gabadhii yartayd waan kaxay subaxa kamida anigoo godkii aan iyada ku ridala u qodayo bay iyaduna waxay sameeyay buu yiri boorkii wajiga iiga soo daatay bay iiga baabi'inaysa garkana ciidan saa iiga lahayd buu yiri markaan dhameeyana u yeeray aabe kaale fiiri godkan baa markaas u fiirisana halka intaan qabtay baan godkii ku riday buu yiri walaashayay sidee buu kaaga dhaadhicin karaa qofka shalay saa kuula dhaqmayay maanta xaqaagan soo dhicinaya u doodaya caqliga noocaas sidee buu kaaga dhaadhicin karaa okay Soomaali way maanta Soomaali ma laga jecel yahay gabdhaha waa maya ninka gabdha badan u joogaan waxa loo yaqaanaa inuu yahay nin gablan ah oo aan waxba dhalin baa loo yaqaanaa indhahaygana anaa saaray gabar 4 gabdhood dhashay oo aan ilmaheeda dugsiga qayb kamid u dhigi jiray oo runtii iyadii ilmaheedu dad aad u wanaagsana Ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyana xifdiye baa waxay igu tiri nin aan darisnahay baa wuxuu igu yiri Allah ninka ku qaba maxaad gablan ka dhigtay buu yiri ninka ku qaba maxaad gablan ka dhigtay markaas intaan xaybaan ku yiri bay tiri walaal maxaad ka wadaa sawtan awlaadeydii idul meerayso oo awlaadeeda 4 garab iga taagan markaas yirina ma gabdhaad ii sheegaysaa gabdhaha ii sheegina wiilal dhal buu yiri sida iyada wiilashu gacanta ay ugu jiraan oo gacanta ku haysato qodobka labaad oo muxuu wax leedahay Soomaali maanta isku habaarto waxa kamida inay yiraahdaan naas dheer gurigaaga hogatay oo macnaheedu yahay gurigaaga gabdha badan ha yimaadaan waa isku habaaraan marka walaashay ninka saa ku yaani habaarka ilaa heer uu gaaray nacayb uu ku qabo inuu habaarka sameeyo ninka guriga aad joogto u qabo guri inuu yahay maxaa wax la yiraahdo aan cidna joogin oo gablan ah sidee buu maanta intuu suud iyo tay kuugu soo xirto uu kuugu oran kara kaagana dhaadhicin kara xaqaagii baan kuugu doodaya kuugu keenaya mise mid labaad xaq ayaa laga doonayaa bal su'aasha isweydiin xaq ayaa laga doonayaa yuu ku maqan yahay xaqu ilaa ninkii uu xaq ku maqnaaba isaga la ana xaqi doonaya xaqo yu ku maqan yahay marka waxaan rabaa marka inaan wax yar ku siiyo diintu booskay ku dhigtay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la takrahu albanat war gabdhaha dhibsanina gabdhaha nicina oo sababtu wuxuu yiri fa innahunna mu'nisatun ghaliyat waayo waa wehel hadana aad u qaali abure fa innahunna mu'nisatun qaliyat wuxuu yiri waa wehel hadana aad u qaali ah gabdhaha dhibsanina xadiidka labaad waxa warina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Allah ka raali noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man kana 3 banat
qofkay u sugnaatay ninkii dhala 3 gabdhood ama 3 akhwaat ama ay u sugnaatay 3 gabdhood oo walaalo ah aw bintaani ama 2 gabdhood dhala aw ukhtaani ama 2 gabdhood oo walaalo ay u joogaan fa ahsana suhbatuhunna oo wanaajiyo korintooda oo wanaajiyo tarbiyadooda oo wanaajiyo akhlaaqdooda oo wanaajiyo habdhaqankooda oo wanaajiyo korintooda wattaqillaha ilaahayna uga cabsada xaq ka saaran gabdhahaas fiihinna gabdhaha xaqa ka saaran iyo korintooda iyo wanaagooda iyo sharfidooda xaqa ka saaran ilaahayna uga cabsada falahu aljanna qofka jannu leeyahay falahu aljanna marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayat quraan wuxuu ku leeyahay wa idha almaw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat marka la weydiinayo tii la nolol doogay bi ayyi dhanbin qutilat maxaa lagu dilay su-aashu iyada kuma socotaa waxay ku socotaa kii dilay oo doogay bay ku socotaayo tolo muxuu ku jawaabi doonaa marka walaasheeda Soomaaliyeed ogow diinta sharaftaada iyo qiimahaaga keentay diinta ku qiimaysay walaasheeda diinta baro diinta dib ugu noqo fahan waxan lagala cararayo fahan waxaad fahantaa quraanka ku taala axaadiista ku taalaaya baro oo fahan iyaga dib ugu noqo diintaada baro diintaada ku dhaganow ninka maanta kula soo hor istaagay waxaan rabaa inaan xaqaaga u doodo wallahi xaqaaga uma doodaya xishoodku ka kaxaynaya oo akhlaaqdu ka kaxaynaya oo diintu ka kaxaynaya oo Allah rabbi subhanahu wa ta'ala ka kaxaynaya oo aakhirkaaga u dambaysa wuxuu rabaa in aad naar ku dambayso rabaa hayeelin ha ka yeelin Allah amarkiisa adeec nabiga sallallahu alayhi wasallam amarkiisa adeec diintaadana baro adiga fahmaya marka makaanka iyo booska aad joogto adiga fahmaya dawratul mar'atul muslima gabadha muslimada iyo diinta meesha ay gaarsiisay adiga fahmaya walaal diintaada baro diintaadana dib ugu noqo diintaada fahan insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa gabdhaha Soomaaliyeed inuu ilaahay xaq waafajiyo gabdhaha Soomaaliyeed inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala sharafkooda iyo qiimahooda ilaaliyo inuu ilaahay xaqooda iyo wanaagooda ilaaliyo inuu Allah rabbi subhanahu wa ta'ala uu wanaagooda iyo sharaftooda muujiyo baan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryayaa ragga Soomaaliyeed waxaan leeyahay ragga Soomaaliyeedow gabdhaha idinka heerka gaarsiye ilaahay uga cabsada gabdhaha ilaahay uga cabsada wallahi maalinta qiyaamo waa lana weydiinayay ilaahay uga cabsano wallahu la tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh